madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo shir wada tashi wayba uusan isku weeraya madaxda Dowladda Federaalka Somalia iyo dowlad goboleedyada shirkaas oo ku dhigi doona magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugala madaxweynaha oo shir jaraa'id ka qabay magaalada Garowe caasimadda rasmiga Puntland iyo sheegay in shirkaas uu sadii doona lamada bil May ee sanadkan isla markaana iyo iska kooyi doonaan madaxdan ka sareyta dalka sida madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ku jiraan shirkan ka sheegay in talanku ka hadal doona xaaladda dalka isaas oo kala qodobo iyo kumid ayeen qaabka iyo wada shaqeey doonaan madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada isla markaana weelada doonaan magaca guuda way bana shirkan uu ka sheegay intuu sanagada doona kolka falanqayo reed anfiiriyowka dastuurka iyo muddada uu dalka diiraw doorasho qof iyo qaybiyowka khayraadka dalka iyo nidaamka garsoorka waxaan runtii dood dheer oo ay yeesheen xubnaha dowladda dhexe xubnaha ka ah iyo wada tashi la sameeyay madaxda sare ee dalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa la isla gartay maadaama tabashooyin Puntland sida uu qabto si lamida galmudug ay u qabto sida lamida inay Hirshabelle u qabto si lamida koonfur galbeed u qabto si lamida ee Jubbaland u qabto haba kala duwanaadeen duruufaha iyo xaaladaha ay ku kala nool yihiin si taas xal loogu helo oo qof walba tabashadeeda la helo waxaan soo jeedinay guud ahaan dadkii meesha jooga la isla gartay in la yeesho shir wada tashi ah shirkaas wada tashigaana uu ka dhaco magaalada Garowe oo shirkii xilliga calaamasaarka aan ku balan baaqnay wuxuu ahaa shir dib u heshiisiina oo stakeholderska ama dadka daneeya Soomaaliya oo dhanka qaybaheeda ka soo qayb galaan maadaama aragtiyaha iyo habka loo heshiinayo qaabka dalka loo wadi doono lagu kala aragti duwan yahay waxaan ka doorbidnay in marka horeeto shir kooban oo wada tashiya uu dhaco bishan soo socota May labadeeda ilaa iyo inta ku filan oo aan badnayn oo runtii aan rajeynayno inuu Ramadaanka ka hor u dhamaado shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweynayaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe Puntland galmudug Hirshabelle koonfur galbeed iyo Jubbaland sidoo kalena ay ka soo qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somalia mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre shirkaas markii la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhab ah loogu wada hadlayo oo la rajeynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqeynayaan sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqeynayo oo uu san noqon kii hore la oran jiray golaha amniga qaranka sidoo kalena waxa laga rajeynayaa inay ka soo baxaan cidda processkaas la rabo in Soomaaliya marxaladda ay ku jirto hore looga sii qaado ka qayb gali lahayd awoodaha yeelan doonaan sidoo kale waxaan rajeynaynaa inuu shirkaas ka soo baxo qodobada la rabo in hortabinta leh marxaladdan 2020 inta ka horeysa laga rabo in ay dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe iyo dowladda federaalka inay ka wada shaqeeyaan oo annagu aan u aragno in si dhab ah looga wada hadlo dib u eegidda dastuurka iyo sida ay wadadu ku socdo oo ah wada khaldan sidoo kale muddada dalku uu gaarayo sharciyad dhameystiran iyo doorasho qof iyo cod ah iyo madax haysata sharciyad dadka Soomaaliyeed oo dhan ah in la ilaaliyo habka wax qaybsiga ku salaysan isfahamka power sharing ah sidoo kale in laga wada hadlo habka qaybsiga khayraadka dalku leeyahay iyo deeqaha dalka la siiyo iyo wadooyinka loo marayo waxa kale oo iyadana muhiim ah in laga wada hadlo habka nidaamka dalku uu yeelanayo nidaamkiisa garsoorka si dalku uusan u galin buuq waxaad ogtihiin waxa aan ka hadlayo dhan waxba ka bilbilaabin laakiin waxa lagu sameeyay wada leexin waxyaabaha kale oo iyagana aan rajeynaynay hortabintu yeelato oo meesha saaran waxa weeye waxa cad oo Soomaalidu isla waafaqsan tahay in madaxweyne kasta ama dowlad kasta marka ay dhameysato muddo xileedkeeda in uu yimaado hab wax loo isbedel ama doorasho ku dhacayso
madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhowr jeer shir wada tashiyan isku weeri madaxda dowlad goboleedyada dalka ku jiranga haabahaato iyo ku diidan arintaas way bana weli lan ogayne intuu si qabsoomo doono shirkan uu ka dhawaaqay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Shukri Ismaaciil Axmed JTV Baydhabo.